Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu manaystay habeen aad iyo aad noogu qaali ah oo aan laga helin 11 bilood ee kale ee sanadka, waana Laylatul Qadri. Haddaba inta aan u gudagelin Laylatul Qadri in aan ka hadlo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. soo dhawaada youtube channelka Zaki Aadan. waxaan mahad u sugnaatay Alle subxaanahu wa tacaala. Marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta ku xiran youtube channelka iyo inta daawanaysa. waa barnaamijkeena taxanaha ahaa fahamka soonka iyo ilaalintiisa xalqadiisa lixaad oo inaga kala go'ay sababo jira awgood. xalqadan lixaad waxaa uga hadli doonaa 10ka dambe ee ramadaanka, maadaama aan soo dhaafnay 10kii hore, 10kii dhexe oo hadda aan ku guda jirno 10kii dambe. 10kii hore waxa ay ahayd alraxma, 10ka dhexena waxaa la yidhaahdaa waa almaqfira, 10ka ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee ramadaanna waxaa la yidhaahdaa cidqun min annaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu manaystay habeen aad iyo aad noogu qaali ah oo aan laga helin 11 bilood ee kale ee sanadka, waana Laylatul Qadri. haddaba inta aan u gudagelin Laylatul Qadri in aan ka hadlo, waxaan rabaa inaan waxyar ka faa'iidaysano khitmatul qur'aan. dabcan hadda waxaa inooga haray bisha barakeysan ee ramadaan waa 10 maalmood. 10kaas maalmood aan ku dadaalno qur'aanka kariimka ah in aan dhammeeno ugu yaraan 1 jeer oo sida suurtagalka ah. dabcan yoomiyan waxay noqonaysaa qofka inuu aqriyo 3 juz. 3daas juz qaabka ugu fudud ee akhrin karto waxay tahay subaxii inaad aqriso juz iyo bar, habeenkii intaada seexanin inaad aqriso juz iyo bar. meeshaas waxaa kaaga baxay 3 juz in aad aqriso yoomiyan. 10ka maalmoodna waad ku dhammayn kartaa haddii aadan hore usoo dhammaynin. haddii aad hore usoo dhammaysay oo challenges aad naftaada la gashayna way kasii fiican tahay. baaraka allahu fiik. sidoo kaleeta khidmatul qur'aan waxaa jirta si fudud oo aad ku dhammayn karta bil walbo 2 jeer. xitaa marka laga baxo bisha barakeysan ee ramadaan waxaa looga baahan yahay in aqrino qur'aanka kariimka. sidee igu suuragali kartaa hal bil gudahooda inaan dhammeeyo qur'aanka kariimka ah 2 jeer, ama ramadaan ha lagu jiro ama ramadaan iyaan lagu jirin? habka igu fudud waxay tahay kor iyo hoos in aan qur'aanka kasoo bilaabo oo aan isdhaafsiiyo. qaabkee? waxaan kasoo bilaabayaa dhanka suuratul baqara. subax walba waxaan ka aqrinayaa juz. 30 maalmood markii aan aqriyo oo aan kasoo bilaabo baqara ilaa iyo juz ama aan geeyo hal mar ayaan dhameeyey. isla 30kaas maalmood 30kooda habeenna maxaan sameynayaa? waxaan kasoo bilaabayaa juz ama waxaan geynayaa qaybta kore. waxay noqonaysaa marka yoomiyin inaan aqriyo 2 juz oo ah juz kor kasoo socdo iyo juz hoos ka socdo. markaas waxaan dhameeyey qur'aanka 2 jeer ayaan dhameeyey. taasina waxaan rajeynayaa dad fara badan inay ka faa'iidaysan doonaan oo ajar ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka siin doono. aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar oo iga siin doono maadaama aan soo gudbiyey. haddaba waxaan rabaa in aan u gudagalo Laylatul Qadri. Laylatul Qadri khayrun min 1000 shahr. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay fi suuratil qadri ama innaa anzalnaahu fi Laylatil Qadri. suuradaas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sheegay in ay tahay suurad ka khayr badan 1000 bilood. 1000 biloodna waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 83 sano iyo 4 bilood. haddaba waa habeen u dhigma 83 sano iyo 4 bilood khayrkii iyo wanaagii aad samayn lahayd. waana in ku dadaalnaa sidii aan ku haleeli lahayn. caaisha radiallahu canha wa ardaaha ayaa waxay weydiisay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii ay aragto ama ay la kulantay habeenka Laylatul Qadriga ducadii ay ku ducaysan lahayd. waxa uu yidhi quulii waxaad dhahdaa allaahumma innaka cafuwun tuxibbul cafwa facfu cannii. sidoo kale Laylatul Qadri ilaahay subxaanahu wa tacaala waa habeenkii uu xukunno kala duwan uu qoraayo. fiiha yufraqu kullu amrin xakiim. waa habeenkii uu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa. laga raadiyaa 10ka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan, khaasatan habeenada kale isdhaafka ah sida 21, 23, 25, 27 iyo 29. calaamadaha lagu garan karo in habeenkaas uu yahay Laylatul Qadri waxaa la yidhaahdaa habeenkaas subaxeedii waxaa qoraxda ay kusoo baxdaa bilaa shucaaca. waxaana daliil u ah xadiidkii uu soo wariyey saxaabigii la oran jiray ama ahaa Ubay bin Kacab radiyallahu canhu. waxaa la yidhaahdaa jawiga aad ayuu u degan yahay habeenkaas. sidoo kaleeto waxaa la sheegaa dabaysha ama haadda ay tahay mid degan. rajeynayaa inaan waxuun ka fahanay Laylatul Qadri, aana ku dadaali doono raadintiisa iyo baadigoobkiisa. waxaa la rabaa 10ka habeen ee bisha barakeysan ee ramadaan in aad ka dhex raadiso oo aad ku dadaasho.
muuqaalka muuqaal lamida intaan ku kulmi doono. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.